soo lama socotid inaad si bilaash ku baran kartid course alaale course-ka aad rabtid waliba adigu helaya shahaado bilaash ah. Haddaba soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Axmed Liishane. Muuqaalkana waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo dhowr website oo laga barto waxbarashada online-ka ah, waliba qaab bilaash looga barto. Waxaa jira website badan oo si bilaash wax looga barto iyagoo bixiya waxbarasho free ah. Website-ka koowaad wuxuu noqonayaa website-ka la dhaho Allison loo yaqaano. Website-kan waxaad ka baran kartaa course alaale course-ka aad rabto ka baranaysaa, waa 100% barashadiisu waa bilaash. Laakiin markii aad course-ka dhameysato oo casharadii aad qaadato, assignment-yadii iyo su'aalihii iyo quiz-yadii wixii dhan aad ka shaqeyso, waa shahaadadii xilligii shahaadada aad soo gaarto, wuxuu kaa codsanayaa ama lagu leeyahay bixi lacagta noocaas si aad u heshid shahaadadaadii oo lagugu soo diro. Marka haddii aan website-ka gallo, aan toos u gallo, tusaale ahaan website-ku qaabkan uu egyahay markii la galo, waxaa ku qoran free online courses with certificate and diplomas. Course-ka aad rabto halkan aad ka raadin kartaa, ku qori kartaa. Haddii kalena waxaad tegi kartaa qaybtan hoose ee ku qoran tahay explore oo categories-kii ah, nooca categories-ka course-ka uu yahay. Haddii aad rabtid IT ama health ama language, business management, English, personal development, sales and marketing, engineering and construction, iyo teaching and academics. Intaas ayuu kala baxaa koorsiyada uu hayo website-kan laga helayo. Haddii markaan u galo tusaale ahaan qaybta IT-ga, haddaan u galo aan ku dhufto, qaybta IT-ga markay lagu dhufto waxa ku soo baxaya koorsiyadan badan baa ku soo baxaya oo diblomooyin iyo course iskugu jira. Haddii marka aan tusaale ahaan aan ku dhufto Combati aan ku dhufto, aan dhaho more info si aan xog badan uga helo. Marka hore waa this free online courses include waxa kamid ah ama ku helaysid waa 6 saac ilaa 10 saac inta u dhaxaysa bi course-kan aad ku qaadan kartaa. Waa course aad sii wadi kartid oo continued ah, aad sii wadi kartid. Final assessment-ina uu leeyahay. Qaybtana waa course-kii ayuu kugu sheegaya waxyaalihi aad ku baranaysid baa ka helaysaa. Wuxuu ka kooban yahay intaas oo module ayuu ka kooban yahay. Markaan eegno shahaadadiisa, aan eegno course-kan shahaadadiisa waxay ku bixiyaan 3 nooc bay ku bixiyaan shahaadada oo mid ah digital iyadoo ah lagu soo dirayo email-ka, lagu soo dirayo PDF ahaan lagu soo dirayo, iyo mid noqonaysa iyadoo la soo daabacay oo physical ah oo waraaqdi ah, iyo mid noqonaysa waraaqdi oo la soo galiyay frame, la soo galiyay box yar oo frame ah la soo galiyay. Marka midda frame-ka la soo galiyay iyo midda waraaqda ah labadaba waxay kugu soo dirayaan qaab bilaash ah ay kugu soo dirayaan. Waxa ku leeyahay free shipping. Midda ah physical-ka waraaqda kaliya ah oo physical ahaana, iyo midda frame-ka la soo galiyay iyadana waa free shipping weeye oo qaab bilaash ah ayaa lagu keenaya, laakiin iyada ayaa gadanaysa lacag kala baxaysa, lacagta kala baxaysa. Marka website-kan isagu shaas u shaqeeya 100% waxbarashadiisu waa free. Kaliya markii loo eego shahaadada, laakiin marka aad baranaysid marka ugu horeysa lacag laga qaadi maayo oo lacagtaadi course-ka wax ku baranaysaa qaab free ayaa ku baranaysaa. Waana qaab adigu aad ismaamulaysid waxbarashadaada, aad maamulaysid jadwalkaaga, aad samaysanaysid qaabka aruurta ka dhiganaysid, xilliyada aad jaanis u heshid, firaaqad u heshid, iyo inta rabto ay kugu qaadato. Laakiin course-ka guud wuxuu ku leeyahay waa 6 saac ilaa 10 saac guud inta u dhaxaysa muuqaalada ku jira bay soconayaan. Adiga ku xiran tahay inta kugu qaadanaysa, inta ka dhiganayso, hada bilooyin ka dhiganayso, hada bil ka dhiganayso, iyo hada isbuuc ka dhiganaysid adiga ku xiran tahay. Marka course-kan qaabkaas ay raahdeen website-kan qaabkaas u shaqeeya oo inaad waxbarashadii aad qaab bilaash ku helaysid marka hore aad ku dhiganaysid, ka bacdina markii aad shahaadadii ay noqoto aad la baxaysid, lacagteeda la baxaysid. Website-keena labaadna wuxuu noqonayaa Coursera isagana waa website qaab bilaash wax looga barto oo waxa maalgelisa inta badan waxa maalgelisa Google baa maalgeliya. Markii aad Coursera ku soo dhufato waxaad tagaysaa qaybtan explore, qaybta ku qoran tahay take free course baa ku dhufanaysaa si aad u heshid free courses u helo. Subject-yada uu ka kooban yahay waa business, computer science, data science, iyo information technology. Qaab kala badan oo ku jiraan, waxa kale oo ku jira social science, arts and humanities, iyo physical science and engineering, iyo personal development. Intaas ku jirta. Marka intaas oo dhan baa ku jirta language-kii, math and logic-kii. marka qaybta aragtid baa ka helay baa ku dhufanaysaa qaybta aragtid marka hadii ka soo qaad computer science aynu waan dhahno computer science baa ku dhufanay
waxaa ku jirta cyber security for everyone, HTML, CSS and JavaScript for web development, Meta front end developer. Mid walba marka haddii aan ku dhufto dhaho cyber security su'aal ahaan, marka cyber security ugu dhuftay waxa ku soo baxay inuu ka kooban tahay course-kan 6 module inay ka kooban tahay ama 6 chapter inay ka kooban tahay. Rate-ka haysta waa 4.7 weeye, waxaana rate ka bixiyay 2591 qof. Rate galay 4.7 bay haysataa. Levelkeedu waa beginner level, no video or experience flexible schedule weeye. Adiga ayaa qoondeysanaya qaabka arabtida waa learn at your own space. Minaha adiga ayay ku xiran tahay inta ku qaadanayso iyo qaabka u baranaysidba. 12 saac weeye marka muuqaalada ku jira course-kan ama muuqaalada ku jira inta soconayaan oo markii la isku dardaro 12 saac ay soconayaan, laakiin adiga ku xiran tahay. 98% most learners like this course. 98% ayaa ka helay macnaha dadka bartay course-kan way ka heleen. haddii marka aynu u dhaadhacno certificate-keeda iyada waxa weeye shareable certificate oo LinkedIn-ka lagu xiraayo. marka casharadii iyo modules-kii kulli waa kuwa aan halkan ka qaadanaysaa marka mid walbaba kan 8 muuqaal baa ku jira, 4 readings buu leeyahay, 1 assignment baa ku jira. module-ka labaad waxa ku jira 6 saac buu soconaya, 1 reading buu leeyahay oo minaha file la akhrinayo baa la isku koobay muuqaaladii 60 muuqaal waxay ka hadlayaan isagoo file ah. hal assessment-ina uu leeyahay. marka module kasta waxa la socda assessment baa la socda. markan 4 readings baa ku jira oo 4 file oo la akhrinaya baa ku jira. assessment-igi hal assessment-ina uu leeyahay. marka isagana qaabkaas ayaa looga bartaa website-kan oo Coursera ah. waxa leeyahay hadaartuna iska diiwaangelisid enroll for free. marka saasa kula soconaysaa qofka bixinaya ama macalinka bixinayana waa kana oo waa Charles Harry, University of Maryland College Park buu ka shaqeeyaa. 2 course buu soo dhigay. ardada wax ka dhigatay labadiisa course waa 444,000 dad kor u dhaafayo weeye. course-dan waxa bixinaysa University of Maryland College Park baa bixinaysa. 4.7 buu macalinkaas haystaa, dhibcood buu haystaa. marka uu macallin aad iyo aad loogu kalsoon yahay weeye. macallin 2 course kaliya uu bixiyay 400 dad ku dhawaad nus milyan ku dhawaad dad arday wax ka baratay. marka website-kana saddexaadna wuxuu noqonayaa website-ka loo yaqaan edX waxbarashada online-ka bixiya. haddii marka aan u gallo qaybtiisa tagno categories-ka aynu tagno, intaanu category ayay u kala baxdaa waxbarashada laga helo online-ka laga helo website-ka edX. marka waxaan noqonaynaa computer science baan doortay tusaale ahaan. computer science waxa ku jira marka koorsooyinkan baa ku jira category computer science-ka. tusaale ahaan waxaan ku dhufanayaa computer science 101. markaan ku dhufto xogtiisa halkan lagu siinayaa. wuxuu soconayaa 6 isbuuc ayay soconaysaa course-kan. isbuucii waa 4 ilaa 6 saac baa isbuucii la qaadanayaa. waa self paced, adiga kugu xiran tahay weeye. wax macalinka ku maamulaya ma jirto. adiga ayay kugu xiran tahay inaad course-kan qaabka u dhiganaysid iyo waqtiga aad ku bixinaysid baa adiga kugu xiran tahay. certificate-na waa ku helaysaa baa lagu yiri. waxay bilaabanaysaa maanta aankaas tusaale ahaan qof walba markuu galayo buu bilaabanaysaa oo time-kan kugu soo baxaya maalinka ay tahay oo ku joogto. xogteedii dhan halkan ka helaysaa. haddii marka aan u tagno qaybta ah certificate-ka, tusaale marka hore macalinka bixinaya waa kana xogtiisii. waa senior lecturer computer science Stanford University buu ka soo jeedaa ka shaqeeya. marka shahaadadii waa tana. shahaadada course-kan lagu qaadanayo waa $249 weeye marka shahaadada bixinaysid. haddii aad qaab free ku baranaysidna waxay bilaabanaysaa course marka hore waxay soconaysaa ilaa iyo Mars 25-keeda ilaa bisha 3aad 25-keeda bisha sanadkan ku jirno ayay soconaysaa. world class institutions and universities waa helaysaa. edX supports waa helaysaa. shareable certificate upon completion ma helaysid wax certificate waa mid free ah. graded assignments and exams-kana gradiyadii ama exams-ka keentayna ma helaysid. xogtoodii inta ku baastay ma helaysid maadaama ay free tahay. mid marka certificate-ka hadaartan la baxdid waxa helaysaa waxa ku bixinaysaa $250 tusaale ahaan. access-kiisu waa unlimited oo xilliga rabta ayaa galaysaa. laakiin access-keedu waa limited oo maadaama ay free tahay waxay ku eg tahay ilaa 3aad 25-keeda.
saddexaad wixii ka dambeeyay ma aad geli kartid weeye. Marka waxay noqonaysaa inaad lacagta la baxdo, inaad la baxdo lacagtan oo certificate-kaada aad heshid, haddii kalena inaad koorsadii si bilaash ku dhigatid muddada kooban, laakiin si aadan wax helayn aadan helayn certificate iyo imtixaanka laga qaaday aadan helaynin assessment-kii grade-kii aad ku baastay aadan helaynin. website-kaasi saas uu shaqeeyaa wax looga bartaa. Marka sii baarbaara idinka waqti u halaya qofka isagu ha sii baaro, ha sii ogaado xog ku saabsan kulli maadooyinka wuxuu dhan ka helayo kulli dhan. website-ka ku xiga wuxuu noqonayaa oo afraad Stanford buu noqonayaa. Stanford waa waxa weeye jaamacad weyn oo ku taala wadanka Mareykanka. Marka Stanford toos soo gashid online.stanford.edu dhamaan linkiyada waxaa idin soo dhigayaa qaybta description-ka ayaa idin soo dhigayaa website-datan. Markaad toos soo gashid qaybtan waxaad tagaysaa free online courses. Free online courses markaa ku dhufato category-ga aragtid ayaa ka dooranaysaa. Marka intaanoo category baa ku jira. Marka hadda tusaale ahaan engineering baan ka doortay. Engineering markaa ka doorto qaybtan ay ku qoran tahay free or paid baa ku dhufanaysaa. qaybta free-ga baad dooranaysaa. Haddii paid tiraada wax kusoo baxaysa qaybta lacagta baa kusoo baxaysa. Marka qaybta free-ga baa dooranay. oo kuwana marka kuwa free-ga ah oo ku jira koorsooyinka free-ga ah. Tusaale ahaan waxaan ku dhuftay introduction to Internet of Things. wuxuu ku leeyahay xaggan iska diiwaangeli, xaggan formatka waa online, ka bacdina waa self-paced oo adiga ay kugu xiran tahay xilliga aad ku dhameynaysid koorskan ama bilaha kugu qaata ama sanadaha kugu qaata ama maalmaha kugu qaatay. Institution-kiisu waa 0 oo waa free. course access-ka intaad koorskan aad geli kartid oo aad access u yeelan kartid inaad gasho aad heli kartid waa 60 maalmood 2 bilood. haddii 2 bilood ay dhaafto marka koorskan ma geli kartid weeye. Programming-ku waa International Internet of Things Graduate Certificate baa qaadanaysaa. Marka certificate-ka baa lacag ah. marka laakiin barashadeedu waa bilaash oo waxa ku qaadan kartaa 2 bilood baa bilaash ku dhiganaysaa. haddii marka 2 bilood aad soo dhameyso oo aad imtixaankii diyaar u tahay oo aad si fiican aad course-ka u qaadatay, imtixaanka gelaysaa certificate-ka qaadanaysaa marka lacagta la baxaysaa. marka website-kaas qaabkaas marka uu shaqeeyaa oo looga bartaa. marka sii baar, xog fiican ka sii raadi. muuqaalkeenin intaas uu ku egyahay aynu ku eegaynay 4 website oo si bilaash looga barto. way jiraan website badan oo qaab bilaash wax looga barto, laakiin 4tan ayaan ka soo xulay. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.